maanta waxaan sameynaynaa malawax lagu sameynayo ukun iyo malaay. Malawaxina maanta wuxuu ka koobnaan doonaa koob biyo ah, wax yar oo cusbo ah, 2 qaado sokor ah, 2 qaado caano niido ah, xabad ukun ah iyo bur. Intaasaan isku qasaynaa, meel baan dhigaynaa cabaar. Waxaan ku sameyn doonaa 4 xabo ukun ah, basal iyo barbarooni iyo yaanyo iyo kabsar caleen iyo kalluun. Ukuntii waxaan ku darayaa qudaarta, kadibna waxaan ku darayaa qaado foodeed oo ah maraq digaag iyo wax yar oo basbaas ah, kadibna waa isku qasayaa. Malaygina waxaan ku diyaariyey baaquli yar oo gaar ah. Haddana waxaan bilaabaynaa dubista malawaxa. Kadib malawaxii waxaan dubtay intii aan u baahnaa, kadibna waxaan saaray xabad ayaa waxaa saaraysaa birta, waxaa ku daraysaa qudaartii iyo ukuntii isku dhex jirtay. Haddana korka waxaan kasii saaray malaygii, haddii aad u baahatana jiis baa kusii kor saaran kartaa, ku darsan kartaa. Xabadii kale oo malawaxayd baa markaa ku dadayaa. Sidaas ayaan u dubay malawaxii oo waxaan ka dhigay 2 isku daboolan. Markaa isku daboosho kadib oo hoos ka bislaado, labada dhinac way rogaysaa. Markuu gaduutana waa ka dejinaysaa oo bislaado. Dabkana aad baa u yaraynaysaa. Intaa kadib waxaa kuu soo baxaysa cunto fuul ah oo macaan oo nafaqo leh. Marka intaasaan ku joojiyo, waxaan ka codsanayaa subscribe iyo like wax walba ii saara. Amaan Allah.